iskii Washington warkay cawkiye salaan caraabinayeen hadeer cadow nagu keenayo caloosha naga xanuunta daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo la yeelan doono Cabdikariin Maxamed Xiiray oo garabkayga fadhiya Cabdikariin waana suugaanyahan Cabdikariin wuxuu sameeyay maansal la yiraahdo fariintii xawayaanka iyo faaladii ka dambeysay Cabdikariin marka ugu horeysay ku soo dhawo warbaahinta Xodo Media waxaad ka warantaa maansadaas bal waxyaabaha ay ku soo baxday adoo soo koobay maansada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Xodo Media aad iyo aad baan idin salaamayaa waxay soo baxday maansadaani 2007 markii dhamaadkeedii oo 2008 la galiyay adigu ayaamo ay kaga jirtay waxaan joogay magaalada Berbera waa sida maansada marka waxay ka hadlaysaa maansada horta sida magaceedaba ka muuqata fariintii xawayaanka iyo faaladii ka dambeysay maasadan waqtiga aan tiriyay ee marka dhowr iyo 10 sano ka dambeeyeen meelo badan iyo meediya badan iyo wareysiyo badan waa la iga qaaday waxaan moodaa inay igu soo noqnoqotay oo ilaacado badan iyo telefishinno badan oo maanta Xodo Media kamid yahay inuu macnaa sanad ka bacdi ay deelay weydiinayo maansada waxa la yiraahdaa fariintii xawayaanka faalada ka dambeysay waxaan joogay magaalada Berbera sidaan u ogsoonahay magaalada Berbera xilliga ay badan ba ku nooleed ayda badan ee ku nool waa laga cawday hay'ad baa la sameeyay cid baa la sameeyay baabuur baa la sameeyay waxa la damcay in xilliga la dabar jiro waxaana lagu darsaday xilliga wax qabadkii marka dawladda jirtay waxyaabihii ay dawladdaasi ka hadlaysay xilliga dawladda Soomaaliya xilliga jirtay waxyaabaha ay ku darsatay wax qabadkeeda waxa kamid ahaa tabargoynta ayda waxyaabaha aanu qabanay waxa kamid ah magaalada Berbera ka qabanay inaanu ka nadiifino aydi iyadoo dhibtaasi jirta waxoogaygii firdadka ahaa ka haray ayda ayaa waxay hoteelka Mansoor joogay marka anigu ka shaqeynayay ba meel badda agteeda oo imika qaybta xaq badda xigta kaym cidlaabay ahayd oo xiran ayda gari jirtay imika wadaga arkay quruxdeeda iyo sida loo hagaajiyay iyo sida looga shaqeeyay iyo sida loo fadhiistay iyo waxa marka maana sameyn xilliga laakiin si hindisaheedii iyo qorsheeda waan wadnay waa Mansoor hotel tabatana anigoo goor caweysa jooga magaalada Berbera qaybta bariga hotel Mansoor dhexdiisa ilaa cadan la yiraahdo VOA-duna ii shidan tahay iyo waxa soo galay caweys la yiraahdo caweyska Washington hadda ogow ayadii bariga la laayina agtayada intii ka soo hadhay wayna la daris marka hambada iyo biyaha iyo waxa samsina Cabdisalaam iyo Cawki ninkii loo jiray Allahu naxariistay Ahmed Xasan Cawki iyo Cabdisalaam Hareeri iyo barnaamijka daadihinaya hay Cawki halkaas ka Cawki daadihinaya Cabdisalaam baa wareysanaya hay Cabdisalaam maxaad inoo haysaa bil caaw waxaan inoo hayaa buuri sheekooyin la yaab leh oo hadana la yaab leh waa Cawki ninka Ilaahu naxariistay baasha laba dhigay wuxuu yiri ayda ku nool Canada iyo Mareykanka tiradooda waxa lagu qiyaasay buuri 450 milyan hadii aan qaldanay wax saa ku dhow ma taqaanaa buuri Cabdisalaam oo lacagta ku baxda kulkaas bal hada u raaci dadka kulkaas waxa ku baxda 13 bilyan oo dollar kulkaas waxa ka yiri oo hadeen Afrika u xisaabinay marka lacagta maxay u gaadhaysaa kulkuleetar baa ku dhufteenba waxay u gaadhay Afrika oo dhan $10 bal waxaad ka warantaa buuri hadaba ayadii Afrika ku nooleed iyo nimankan imika kuwa halkan jooga sida loo buunbuuniyay Cabdisalaam baa yiri wuxuu ka waranaa Cabdisalaam markaa wuxuu yiri hodheelo u gaari leey oo caafimaad gaari leey oo ambalaas gaari leey oo meel ay kubadaha ku ciyaaraan oo gaari leey oo meel lagu tartansiyaa leey oo hodheela sariiraha la yiraahdo flight-ka waxa la yiraahdaa kala baxsan labada nafarka ah iyo seexdaan lacagta hodheelada ku saxdan aydaas wax ugu yir $70 $140 $200 على أي dhaqaalahaasi wuxuu ka yimaadaa dawladda Mareykanka iyo Canada bixisa waxa wax la siinaya ana awad bal inta caan gareega waxa soo lacag waxa ku baxaysaana waa ay wuxuu hadii cudur laga dareemo markaba dhakhtar baa ku imanay markii ayadii nooca laga sheekeeyay ayaan waxaan la yaabay anuma wax wariyo yaan sari wala yaabay anu ayday nooca looga shaqeynayo
oo lacag intaa leeg ku baxayso oo dhaqaale intaa leeg la gelinayo oo diyaarada la saarayo oo hodheel la siinayo wuxuu ku leeyahay hodheel halkan oo aan soo maray maanta ayaa waxaa jirtay buu bisado ayaa inta gaari laga soo dejiyay maarsaandiisa waa ka ugu qaalisan baabuurta ayaa shandad yar baa loo soo qaado kolkaasaa come on ka taas waxa la hayaa dabeetana wuxuu sir baa xurno afkana libis baa loo mariyo cidiyaha xinna loo mariyo waxa yaro shaash loo qurux badan wuxuu ku leeyahay jaranjarti baa la saaray tiishka baalka hadda laca iyaaba la saarayba ajay hadda waxaas waa bisad labadan markay haasaaway halka mariyeen waxa agtayada fadhiyay markaasoo aan ilaacada dhageysanayay aydii iyo farxadkii ka soo haray bariga ayda barbari la laayay mar qurumay isku dareeno markay ilaacada dhamaatay war heede nimanka ilaacada aad ka dhageysatid qaylada may ka daayaan aad baan u xiisinay barnaamijka markii dhammaan war heede waxa kala laba qaylinayaan ilaacada may maqlayaan waxay leeyihiin adduunyadan cadaalad inay ka jirin haddii kuwii Yurub sidaa loo galay oo sidaa loo ilaaliyay annagoo Afrikaanu ku nool nahay hay'adan u dooda in xuquuqda xawayaanka xagee wax annaga xuquuqdayadii xagee dhigtay marka halka halabuurkuna waxba isu geegeeya kulli suugaantii waxaan ka soo dhex saaray nimankaas tolo hadii gabi laayeen waxay oran lahayn halkaas ay markaa sheekadu ay ku soo baxday marka maas maxay oranaysaa maansadu waxay oranaysaa cajiib iyo waa cajiibi cajiib iyo waa la yaabe cibaariyo waa wareere carraba waa baahideedi cishaba waa waayaheedi caways xoolaha la hooyey anoo keligay ciyaarta caroog iyo tumaya dhaanto cutub ayaa agtayda calaacalayo cataabay xaggooda markaan u ciiray agtayda markaan ku gaadhay markaan idhi cabashadooda maxay markaan idhi cabashadiinnu maxay caawa daaran tahay codkiisa mid baa ku muuji ergaankuu nahay cabdoowe bilaahi nacaawi caawa caalamka gaadhsii fariintan waxaan idhi waa cajiibi maxaa cabashada abuuray ila waa kuwan hadlaye caweyskii washington waxaa cabashada abuuray caweyskii washington warkay cawkiyo salaan caraabinayeen hadeer cadhow nagu keenayo calooshaa naga xanuuntay waxaan idhi waa cajiibi muxuu cabdi hereer sheegay itixaankaneega wuxuu cabdi hereer sheegay ayadoo carwo loo sameeyey hodheelle cajiiba seexda cuntooyin u gaara quuta shaqaalo u ciidmi raaco haddii cudur laga dareemo markaba cusbitaal la geeyo doctoriyo culimo baadho cabdow caymiskana la geliya caymiskii ku jiraana eyga xanuunsadaa exorank iyo caymiska ku jira ogow ilig hadduu xanuuno ambulance baa la istaaraya mise markaba waa lala caraya irbada algeeg xanuunaysa may god iga raalli ah ay warba waxaan ka waraadan waalidan bal waxaad barbar dhigtaan haddaba dee kuwan marka inaga gidaarada inoo farfadhiyayo haddii dee marka la yidhahdo ay baa halkan wax lagu yeelay ama ay baa cid ma garanaysa dadku way yaabaya cabdikariin maansadii mayntaas ku egtay maya inta ii dhibanaha ku daro hodheele cajiiba seexda hadday yara caajisaana diyaarada lagu caraabsho carwada baariis la geeyo dhammaan carfi loogu maydho wuxuu cawkana u raacshay bisaas cambar loogu maydhay hadday yara caajisaana diyaarada lagu caraabsho carwada baariis la geeyo kuwaa sida loogu ciidmay hadduu cabdi hereer sheegay annagu waxaad cawkiya salaan cabdow gaadhsiinaysaa annagu ciirsada joogno kuwii kala hadlaya kuwaas waa yurub bal kuwii afrikana dhegeysa haddaba waxay leeyihin waxaan nahay noolo ciilan carrada afrikaan ku noolnay nasiibka yaa cerceeray cidnoo doodana ma hayno carwiye iska daa ciyaare cidlaan ku badbaadi weyna cayntaanu gallaan ku badbaadi la'aan carwiye iska daa ciyaare cidlaan ku badbaadi weyne cuntiyadaa waxaan cabno hambana cidi nooma qoodho baktiga cawkow la jiido cidaam iyo lafa la daadshay inaanu cunno lanooga dhaari sunbaa cuntana loogu duugay col iyo guluf baana qaaday ciribteedaa la gooyey aadamaha waana caawinaaye maxaana lagula ciloobay midaan cuud way garamayaan midaan cuudkiisa raaco midaan cidlo uga gargaarno maraan caways tuug soo dhacaya maraanu cawkow kaga dhawaaqno annagu waana caawinaa maxaana lagula ciloobay waxba yaanaan cadha hugmine col iyo guluf baana qaaday ciribtayadaa la gooyey subaa cuntana loogu duugay waxba yaanaan cadha hadline waxba yaanaan cil hugmine
war caafiya ruuxdan ciilan daweeye cidaamkan weeqan ka keen caweyskii washington cabdu cawkiya salaan ilan fariinta nimama iigu dhiibeeno taana nimankii baan u gudbiyo nimankaasaa fariinta u geeyey VOA bay ku socotaa fariintan VOA da iyo dee ku socotay marka waa sidaa inay maansada xiisada badan inay ka wada bogteen ayaan filayaa daawadayaashu cabdikariin haddaynu intaa kaga soo noqono maansada iyo sheekadeydii hargeysa oo somalilan caasimadu ah waxaa ka dhacday qiso amba dhacda aad dadku muddooyinkii u dambeeyey wiigan loo hadalhayey nin ay jeeray kadibna la xidhay bal markii la xidhay sheekadaasu siyaabo kala gedisan baa looga hadlay bal markaad si leedahay xaaladda aynu eegno ay cabashadaas horreysay iyo tan imika bal soo koob haddii aan isbarbar dhigno bal maansada aan tiriyey dhowr iyo 10 sano ka hor waxa aanay dadku fahamsanin ka hadlayay iyo imikood leedahay macnaha waan ogahay waan maqlay anigu Hargeysa inay taasi dhacdaas ka dhacday waana laga heshiiyay waana la saamaxay qofkii inkastoo la yar buunbuuniyay oo dadka qaarkood ay yiraahdeen waxba laga mag dhawday waxaas waxba kama jiraan si fiican baana loo fasaxay gaarigii iyo inankiiba laakiin se dhacday in badan media haysatay ajaayib leh iyo hayd horta kan imika wuxuu inankani inoo sheegay Cabdi Maxamed Cali wuxuu inoo sheegay inuu lacag soo siistay tawo ku hor sheegay diyaarada la saariyay Cabdi Salaan iyo ka nooga warrameen 10 sanadood ka hor ay dadka Soomaalida ugu sheekeynayeen waan nimanka hadda tigir kale ee diyaarada la soo saaray ee caafimaadkiisa la soo baaray ee la soo dhoofiyay ee halkan la keenay ee macna sida gaarka u tababaran hadduu doono janan buu haabo malaadeen marka maanta marka halkan la dhex dhigo ee la yiraahdo ay baa qof loo xiray ama ay baa laga magdhowda cid ama ay baa laga rabaa dhakhtarkiisii kharashkiisii wax maskaxdeena gelaya ama inuu fahmi karayno dadka maanta jooga wala yaabaya laakiin dadka maanta Yurub jooga ee maansadaydan maqlaya ama Ameerika jooga ama caalamka kale jooga waxay og yihiin inuu qiimo gaar ah u leeyahay qoladan dadkan dhaqda nimanka dhaqda nimanka dhaqda oo waxyaabo badan uu doo qabtaa waxaan maalintii dhawtay imika laga sheekeynay ayagan la sheegayo waxa la soo dhigay ay adeegaya oo luqunta loo soo galiyay salad oo intuu saaw qaado kolba qusrada isag taagayo oo dukaanka tagayo oo dadana inta lacagta laga baxay alaabtii loogu ridayo oo gabiga waxa u baahan yahay oo dhan bal cid soo qortaan uu garanaaye haddii qusradtii haddii alaabtii haddii sharaabtii haddii wax walba tahay mid walba uu isdul taagayaa waa lagu ridayaa lacagtii baa lagala harayaa uu dhaqaaqaya gurigii buu geynaya Hargeysa waxay ka mid tahay goobaha ugu xayawaanka ay ugu badan yahay ma kula tahay in xayawaankan inta magaalada laga saaro goob xanaano u gaara in loo sameeyo horta taas waa muhiimba waana uga faa'iideysanayaa tan oo maayirka cusub ee magaalada Hargeysa waxaan leeyahay horta dib dadkii baa dhibayaan ayagina waa dhiban yihiin dadkina way dhibayaan way baabuurta hoostooda way ku kaajaan mar dhowna ninka makaaniga ah ama ninka gaariga ka shaqeynaya bartii ay ku kaajo gaarigu taagay baa laga yaabaa bada sugan ogeyn inuu gaariga ku furfuro roobku hadduu helo oo kale deni jaas bay keenis marka in xawayaanka laga saaro riiba laga saariyo day koorto kuwa baa ka horeeya riyaha kuwa baa ka horeeya in kuwa horta dadka laga nadiifiyo oo meel la iskaga xareeyo oo la leeyno day meel la geliyo habeen ugu qabsanaye anigu soo jeedin la fikirkan waan aaminsanahay daawadayaal intaa waxaan ku soo gabagabeynaa waraysigii koobnaa ee la yeelanay Cabdikariin Maxamed Xiiray Cabdikariin wuxuu ka mid yahay suugayahanka Soomaaliyeed waana abwaan inta badan suugaanta kala geedisan tiriya intaan barnaamijkan oo kala kulmi doonaa waana Yuusuf Cabdi Xudaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.